wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasin Daqare ayaa ka warbixiyay fatahaadda webiga Shabeelle iyo saameynta ay ku yeelatay beeraleyda ku dhaqan deegaano dhowr ah oo ka tirsan degmooyinka Jowhar iyo Mahadaay. wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha ayaa tilmaamay in dalagii beeraha ay beeraleyda ku dhaqan deegaano ka tirsan degmooyinka Jowhar iyo Mahadaay ay saameyn ku yeelatay fatahaadda webiga Shabeelle, sidoo kalena qoysas deganaa hareeraha webiga Shabeelle ay ku barakaceen. lix ayaa oo dagaashidan kugu tiriyay Buule Axmed Mareesay Gumatay runtii tuulada in waaye Buule Axmed hadii aan soo qaato dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa 560 qoys biyuhu waxay waxyeelayeen oo ay galeen 50 guri oo kamid ah tuuladaas dalaga ay waxyeelayeen 200 hektar waaye tuuladaas hadii aan soo kacno Mareesay sidoo kale 600 qoys ayaa lagu qiyaasaa inay degan yihiin 200 guri oo kamid ah tuuladaasi biyihii ayaa waxyeelayay 2500 hektar oo dalagii ay ku yaaleen biyihii ayaa saameeyay sidoo kale Gumatay waxa lagu qiyaasaa 100 qoys inay degan yihiin tuuladaasi biyo ma gelin balse 350 hektar ayaa dalagii ku yaalay ay biyo waxyeelayeen baaro weyn hadii aan nimaado 550 qoys ayaa lagu qiyaasaa inay degan yihiin qiyaastii 2550 hektar qiyaastii dalag kala duwan ay ku yaaleen ay biyaas waxyeelayeen. gobolka Shabeellaha Dhexe oo caan ku ah wax soo saarka dhinaca beeraha ayaa sanad walba waxa saameyn ku yeesho beeraleyda dalaga ay beeraan fatahaadda webiga Shabeelle ka yimaada kuwaas oo baabi'iyo dalagyada ay beeraan beeraleyda. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar.